xasuusto qof walba ilaahay subxaana watacaala inuu maalin hortegi doono oo ilaahay la xisaabtami doono guule Saal Jibraahiil iyo Beeshar Makame dhamaantood iyo Abdiraxiin Salewaan Abdullah Ibrahim very good 13 qoolan lahay iyo Abdiraxiin Salewaan dadka iyagaas waxaan isugu nimi arin la sheegay Ismaaciil Salewaan kaabe fariya adu dadka iyagaas waa dad iyo kuwa naga maqanba oo qalbiga naga la jira waxaanu meeshan u nimi inaanu dekada wax iska weydiino horta dhamaanteen dekad ma u baahannahay maraasantiin soo maaha dekad waa rabnaa laakiin dekada rabnaa waa dekade waa su'aal kale wala boosasoo dekad waa rabtaa dawladdu inay dekad noo doontana way isku ogeyn laakiin dekada inoo keentay markii koowaad oo ay horta boosal garowga la keenay oo dadka reer Boosood iyo dadka Puntland oo dhan waa isku mid meelshii mashruuc horumar laga qabto oo Puntland dadka raalibu ku yahay dalka ay garooma alboor baa laga wada kii Boosood baa la qabtay kii garow waa la wada kulli waa ku faraxsanahay dekada tan waa wadaagnaa dadka Soomaaliyeed baa nala wadaaga laakiin dekadeeni markii koowaad ay timi baarlamaanka iyo dawladeena diray in baasha qis ku jiro dawladii iyo suuxbaan soo kacanay mise dawladii waa la riday haddii dawladii la ruuxal war dawladii way saxaysaa kor bay isu qaadaysaa horumar bay baarlamaankii waa kacay waxbuu qabanaya waxbuu baarlamaankii waxay kaliftay inuu corruption qaato waa taariikhda madow ay noo keentay caawa kalsoonidii dawladeena iyo baarlamaankeennu inay madaxdii u sareysay corruption kala qaataan oo ku heshiiyaan dawladaha adduunka ma dhicin lacagta carabta waa nidaam kale baana keentay ha keentee baarlamaanku hawshu naga xigsan lahaa dadweynaha waxa isu keenay hay'adii naga xigsan lahayd baa meeshii ka baxday oo lacag qaadatay waxay kalifsan anagu inaan waraaqi akhrino iska eegno iska hubino maxaanu markaa ka helay dekadatan 336 milyan baa la gelinay baa la yiri dadkan wuxuu rabaa 336 milyan dekada ay ku kacayso in loo ka dhiso madaxtooyada aan mareere la geeyo meel banaan oo wadooyin leh oo dekad imaaraad dhisay baanu rabnaa in loo dhiso ma doonayno dekadayadii Talyaanigu nooga tagay oo 7 sano ka baxsanay sida marnahay waxaan kaloo doonaynaa inaan sheegno warneeg fiish Denmark baa noo dhisay kalluumaysatada hadday kalluunkii barteen korontadana dawladda Negfish noo dhisay korontada magaalada aynu iftiinka ka dhiganay oo abshir Muuse Ilaahay inoo ku soo dhiibay oo dawladdii maxaa sabray inoo ka tagtay walba kulli baan mise kuma liibaanin haddayna korontooyin iyo nal aynaan haysan dalkuna ina ka dhaco darxumada magaalooyinka oo habeenkii nalku damo dambaa la noqdaa ilaahay baan ka magan galay dawladaha waxoodii in la baabi'iyo ma rabno in la qishona ma rabno
haddii dowladaha carbeed wax dhisayeen fagaaraha dadka uga dhiseen cabdishiic cali salmaarke baa wuxuu tegey allahu naxsanu raiisul wasaaraha masar tegey dagaalkii 64 wuxuu yidhi masar waxaan idinka rabnaa hub jawaal wuxuu dacay inuu mudaahineeyo oo yidhaahdo waa soomaalida waa jecel lahay dalkii aan jecel lahay kanaan jecel markuu arkay in waxba uu soo wadin wuxuu yidhi waa ognahay in masarna jeceshahay laakiin waxaan ka rabnaa dadkii soomaalida waxay ga rabaan waxaan tiriyo u geeyay masar baa idiin soo dhibtay haddii carabtu wax dhisayso aata madaxtooyadii iyo meesha xiryaha xooluhu ka dhoofaan halkaa ha geyso lacagta ha geliso badda ha buuxiso ha qabato laakiin dekedayadii iyo denmark iyo dugsigii xaaji mire iyo dabdamiskii iyo dadkii kalluumaysatay iyo guryahayagii dhulka loogu yimi baan duminaynaa nina ka yeelimayno war miyaan yeelaynaa fariinta iyadu horta waa taa dadka reer Puntland deked ma diidanin horumar ma diidanin magaalooyin ma kala lihin laakiin wax qaldan baanu diidnay wax qaldanna idinna ma yeelaysaan waxaan kaloo rabnaa maxay kaloo ku qaldantahay dekeda laga fiish laga dhisay kalluumaysatada 7 sano dadkeenu xoolo dhaqateen soo gurxeebi waa ilowna kalluunka waa laga baxay 3,000 oo laanji baa dhigan dadka dayarta kalluunkooda soo gataan badda inay ka shaqaysanay banaan maanta in la dumiyo ma rabno nagfish in la dumiyo ma rabno wadooyin ma la dekadu dekada waxa la yiraahdaa waa bad iyo shimid ku wareegsan waxa la yiraahdaa meesha kiiskeedu gaaro bay dekad ku tahay dekada waxaan rabnaa ilaa kilinka shanaad ilaa Itoobiya ilaa Baydhabo in badcadeedu gaadho wadada koowaad waxay rinta ka soo saareenaa guryaha day guro hortiisa meesha inta waaweyn oo dabdamiska ku beegan xagee wado waabaan weydiinay waxay dhaheen wadada cusaalka hormar wadada cusbadalka ninka markiga wata ma mari karo tareelayaashii xoolaha rari lahaa oo badacada rari lahaa ma mari karaan laba marki isku raafto halka al-Nasr iyo markaa maanta marayso haddii baabuur rar laga dejinayo hal saac ba ku xidhmaysa wadada labaad waa wadada Dar es Salaam ku dhacdo xaafadan dhexmada iyadana haddii aad gasho maanta shaqo waa seegtay waxaan halkaa ka rabnaa oo dekada injineer baa Ingiriiska uga yeeranay wuu soo saaray 220 milyan baa ku baxaya wadada jidka Soddonka ee wadooyinka haysanaa highway-gaasay maraysaa halkaasay badeecadu ka dhacaysaa magaalada culayska ka xayay laakiin waa in haddii kale boosol la dumiyaa heshiiska waxay ku soo darsadeen carabtu guryaha marka hore la duminayo oo dawladdu siisay waa ilaa higlo iyo wadada hormarna guryaha reer xaaji mire halkaas xaafadaas macna ka sugaysa xanaano xoolaha waxaas oo dhan xaafada carabba afka loo soo saaray kulligeed waa dumaysaa marka dekadu ma khasaare inoo keenaysa mise horumar khasaare keenaysa khasaaro way marka waxaan doonaynaa dawladdu hadday dekad xalaal wato meesha wadooyin kale ha nooga dhisto waxaan kaloo ka shakisanahay shirkadda dekadan dhisaysa 45 milyan bay rabtaa inay nagfish ku qodqodo iyo degadii Talyaanigu noo dhisay Talyaaniga ma sharaf xumayn karo dalka waxbuuna taray isaga dekada noo dhisay isaga laamiga noo sameeyay haddii xurmaan cid wayna saan u haynayna cid kale oo ku xoqan ka dhaama jirto marka warkayagu waa clear guryahayagana waa magaaladii dhulka laga asaasay dugsiga xaaji mire 3,000 oo qof ka baxay Cabdibashiir ka adeerkay oo bees ka baxay isbatoor dargo dhan inta aqoon-yahan ay leeyahay iskuulkaas ka baxay carab baa musara oo dekad dhisanayo oo dhulkeeni wada banaan yahay in loo dumiyo intaas oo arday baa ka baxday ardadeedii baa ku filan inay yiraahdaan war iskuulka laba duukar waa taariikhi gurigii boortooyada oo dalka laga xukumi jiray oo tijaaradda ilaa qaw ilaa xaafuun ilaa iyo Abubakar Ciise baa gaaladu qudhay baa isku xirnaan jiray dhulkaas ayaa tijaaradda wada lahaa bari ka dhoofa dadkii waxa isku xirreeyay guryahoodii oo boqortooyada ka talin jiray baa rabaa in la dumiyo waa taariikhdeeni waa la galaya waa taariikh asaartay soo degnay magaalada dadka u asaasnay magaaladii burburkii lagu baxsaday way ma dadka ku baxsateen baa duminaysaan war masaasa ku talinaysaan arintaas waxaan leenahay wixii aan qaban waa ka hadlaynaa wixii qaba dawladdu qabato wanaagsan si aeroboorka kale waa yiideena wixii qaldan waa diideena marka waxaan rabnaa inay carabtu haday wax dhisayaan waxa si calaamad u ah oo waligaan isha ku haynayna shirkadda tan waxay qaadatay Djibouti oo dawlad leh
dowladda jabuuti lacagteedii bay weyday waxay yireen mala imaaraadka inaan la aadin bay rabaan waxay yireen say waxay qaateen cadan aaxireen iyo mukulli ilaa yaman oo la isku direen hadda cadan iyaga qaatay berberana hadda qayladeedu yeeraysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka shalay wuxuu lahaa reer berberow hantidiinii la dhacay ma idiin soo celiya dadka dhan waa qayliyay hadda inagu sidii bay nahay war waxaan rabnaa madaxweyne dambe oo noo soo celiya xaqaygii baanu doonaynaa marka wadi salaamaya waana ammaanatiin cidna dulmiyana Puntland baan u hadlaynaa sharafteedu u helnaa waana idin salaamaya assalaamu calaykum warahmatullahi waxaan rabaa saddex qodob inaan sheego qodob waxa weeye waxaan ku raacsannahay kulligay isku raacsannahay 15 beelood oo xaafadda degan dekada aageeda waxaanu isku raacsannahay dawladdu inay dekada ka dhisto meel bannaan oo ilaa aaga mareero oo la yiraahdo waa dekadii imaaraadku dhisay ay magac ku yeelato tan magac kuma leh iyadu imaaraatan magac kuma leh gaaladii noo dhistay baan maxaan ku iraahdaayay ku sharfaynaayo ku ammaananahay oo aan waliba waxba naga qaadan dayna noo sheegan midda tan hadda la leeyahay waxba lagu soo qaatay haddii dawladdu ay wax ka soo gurato bannaanada oo ay dadkii masaakiinta shacabkii kula soo jeensato oo ay waxba siineen oo jeebka ku gurato hadda indha cadays waa meesha ka dhacay meel balaayo ka dhacday hadal waxaan u jeedinayaa ninka la yiraahdo Cabdiweli haddii dawladdu xumaato madaxday ka xumaata madaxdu hadday nabad tahay dawladdu waa nabad wadanka waxaa jooga gobernatoriyaal dhiisiyaal taliyayaal qaybeed niman ammaanka iyo nabadgelyada haya aad baan ugu ammaanaynaa maaha inay heesayaan maaha waxa weeye waajibkii dalka ka saarnaa qaranka ayay gudanayaan in la kiciyo oo dhibaato la isu keeno oo adigu diyaaradaada aad ku dhacday waa ku naqaanaaye waa soconaysaa diyaaradaad fuulaysaa aad quraansho nooga tagsid oo madaxdii yaryarayd oo joogtay oo aanu jeclayn oo walaalaha ayaa aad nagu didid annagu raalli kama ahin mana ogolin degmadayadii maxaan ku iraahdaa qadiimka ahayd oo bendarqaasib la oran jiray oo wadanku uu ku dhisnaa baanu duminaynaa waa garanaynaa matabcada burweyne ayaa ku talinaya midaan waxba tarayn hadhow waxna ku tarayn annagu waxa weeye dhulka yaga hadii nalo ku yimaado waa ku dagaalamaynaa runtaan ku sheegayna waxa weeye Cabdiweli yow markii 100 nin ay ku dhimato oo labada dhanac ay ku dhimato yaad madaxweyne u noqonaysaa waa maya wallaahi baan 2 bilood joogin 2 bilood shacabku intuu geed walba iyo meel walba iyo buunta walba ku galo ayaa lagu xasuuqayaa adiga ruuxaaga inaad nabad ku noolaanay marka waan kuula talinayaa anigu wanaag baan kuula talinayaa maxaan ku iraahdaa taladayda qaado dekadaasna meel banaangee oo la yiraahdo waa dekadii imaaraadku dhisay tan imaaraadku magac kuma leh waxna ugu jiraan waxa lagu nool yahay ilaa Itoobiya ilaa wadanka meesha ugu sheeysabay ku nooshay inta yar alxamdulillah mahad weey ilaahay baan ugu mahadinaynaa marka waxa weeye taasi waa taa waxa weeye nabadgeliyaan rabnaa nabadgeliyada hal la wado 15 beelood meel ay degan tahay baan agta miranayaa weel yar yar u soo diraya marka tirahay hada ninkii Cali Qoobay wuxuu yiri wixii ku qabteen Cali Qoobay waxaan ku qaban qooraankaaga yaal waxaanu nahay baad arki doontaa warkayga intaas ku soo geynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaah a'uudu billahi minash shaytaani bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan ka hadlayaa qaabka hadalkii waa la dhameeyay intii nuxurka haydna odayaashii iga horeeyay ayaa jeediyay anigu waxaan ka hadlayaa qaabka dhismaha dekada iyo qaabka maalgashiga oo waxaan aqoon fiican u leeyahay sida wax loo maalgashado imaaraadka waxaan joogay muddo dheer dhismaha imaaraadku sidoo dhismaayay waa joogay waxaan ku lahaan jiray shirkado waaweyn oo muqaawala waxaan ku xisaabahaan xasuusinaya horta in iska gasho xadgudub wax la yiraahdo ganacsadii Soomaaliya boqolkiiba 60 waa soo saaray xuquuqdii doonayay imaaraadku waa soo saaray baabadana waxa dhacda dadku inay waxaan munaasab ahayn dalkiini baan ka shaqaysanayaa oo raba inaan ganacsi ka sameeyo ganacsatadiina waan xirxirayaa horta meedka shaaweeye taas waa qodob
qodobka labaad oo kale waxa aan ku qaadanaynaa tusaale marka maalgashi noqoto wali markan waxay maalgasheen Djibouti dekadu waanu caalamiga Djibouti ka soo bixiyeen dekada Djibouti maxay u socon weyd oo maxaa hor istaagay weeyaan anu waxa qabaa marka tibir la faa ku jirto horta anu aqoon fiican baan u leeyahay imaaraadka dekadan shirkadu dekadu waa ka weynta shirkadu dekadu waa ka weynta 360 milyan oo dollar waxay dhisi kartaa aqoonteeda way aniga aan u leeyahay moogtay dekad caalamiga uma baahan hadda dekada in la jijibiyo ama dhibaato loo geysto ama la xiro mid kale waxa ay sheegayaan dekada hadda waa dhis hadda nin adiga waa ku saacidayo waxbaan ku dhisayaa oo haddana kula dekadaadii baan xiraaya oo ka shaqaysanaya oo lacag ka qaad macnaha waxa weeye adigu sulka cilaa weeye waa si buurido weeye aduu ka qaadaya aduu misal lacagtaadi rabaan ku balgasho taasina ma shaqayso anigu waxaan oran lahaa marka ra'yiyan haddii imaaraadku waxay noo dhisaayo ilaa qow ilaa iyo hantaara waa furan tahay halkaa dekad cusub hay naga dhiseen haddii kale maxamed cabdi xaaji miri ninkii iga horeeyay khadar iskuul baan hayn dugsi hoose waxaan ka bilownay xaaji miri anigu waxaan ciyaalkii boosaaso ku koray waxaan ahaan jiray cayaartooygii wasiirkii hadda la casilay oo duulistii hawada xasan isku cayaartooy baan ahaan jiray dalka iyo macnaha magaalada boosaaso waxaanu caruurta ku dhalatay baan nahay ma garatay oo ku kortay baan nahay inta la leeyahay waa la duminaya waa intii asaarka u ahayd magaalada boosaaso taa ma yeerino miyaad yeeraysaan qaabka dhismaha u socda waa qaab khaldan miyaa yeeraysaan qaabka maalgashiga u socda waa qaab khaldan miyaa yeeraysaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقالة أنا كل شيء. سكول كحاج برنا واكبه. لحظة كي بانكتك بوصاص. بانترقاس. برك أنتي الناس من دم الدار. ها. كده سنة وقولوا لي. مقالة أنا شغلت يتواصل سكين بره. وأنا كورنيل بوليس. بنانجي. ديارة بوليس كان مدحوها. هذا إنه حق بوليس لما كانوا وأمري بوليسكو وأمري. ننتو شامبولو شل حدي بالبارا وكونا لقو خسرة. ما هو لقو خسرة يعني. إن أنا كان لظلمين. هذوها حدي لقو عضي هذول حدي لقو عضي. حاجة دولباتك. سؤالي مرة لصوت دوله وبري لسوء هذا. لما كريم بيلاد. كريم غندلا يكريم بوصاص. كريم غندلا أولاً كريم كاس يدكدو مرتين. بينوفر. وأنا أقول تون أقول بوصل الله درته. لما يجوا الرئي إنك وذيال بعوديه. هل كان وحن كرر سجاد يتمم دويود وقبل عدية. هذا مركز أمريكا الإنجليز كي مرة. ضد بسلام أنا نقول. وصلنا كسر نفر. واقعي. dadku abaal buu inoo hayaa akhriyay ka muuqatay ayadahan nabigeena shirkadda Samsung yiraahdo oo mashruuc qaraya waa ka horeysay Cabdulle xilligii farwale boosaasaa ciidamada laga qoray xabar bay fadhiyaan kismaay fadhiyaan inagu cuqdad waxa ka qabnaa waxa xuduud la yiraahdo wadogtii Kenya Ethiopia dagaalada kaga furan oo ma aadi ka بدي إنه برجع بدي لكينيا وهذا غير صحيح أنا علي أنا عبد الرشيد يوم وزير كيس وكينيا وخلص هذا ماشي إن لجوك هذا يو إل كي برس حدود إنديا روشنا يجا راسه هذا كان راتي مدحوينها إنه هشيسك وصوص صحيح وحكون جله بقول ما له دعوة الباح بقول سدات البيع وإلى حافون يكشف إلى حق بقول له مثلا صغير دكتنا لقى سوي كرو إذا ما يبغى كرو هذا الصومالي هذه اللي سقطه إلى الخوان يا شباب يا بلد ده وإنه دعوا إلى العرر هل قاس لك عرر ما شوف روضوا ولا كعرر إلى هذا الندع العرر هذا واحد كلا لو قبلين ماشي شال الصومالي كعررتي وكم بحصت هاتن أي ديارته هذا بحصان السعودي كم بحصته إلى هذا لك حين مالنا بقرت وديالو مدحوينه وسلامي وعلينا مدحوينه وسلامينا
geesi baa tahay laakiin qarnigan koob iyo tobnaad qarni geesi maaha sadaam xuseen be ninka la yidhaahdo qadaafi be cumar albashiir dulka laga kala goy sabarka maaha saba geesi waa saba fuli waa dhooftaa carabi waxaa la soo faqdaa waa soo noqotaa lacag bu sida nalama hadasho waa faq wey waxaa oo dhan faqa naga daa ninka la yidhaahdo alcarab waa markuu gab yahay wuxuu yidhi afka reer magaaluhu yaqaan waa ka oodnahay afka laga faqlay sur iljabi ibna waa jiray ama kaaga goortii wankii araxda taabteen warninkaasu maaloola faq buu soo gala waa soo noqdaa muxuu qarsanayaa ya reer bandarqaasow haddii fidmo jidho cabdiweli baa wada sababta wada adii sheegaya in afraadkee weye in adeerkee weye caayimay xaasha lilah heshiis buu soo galay waa qarsaday shaki baa dhuqaan kulligaa shaki baa ina keenay meesha hadduu heshiiskaad baarlamaanka u akhriila ood gidaaradaa ku soo dhajin lahaa kulligaa waa taagan haatanna waxaa leedahay niyow la bax guddiyaal weliba sharcabulooyarla caalami ah kala tasho heshiiskaa ummadda u sheeg haddii kale shaki weligaa naga bixi maayo intaa nool anu saasaan qabaa kowdhe waana mahadsantihiin ku salaamayaa dhammaantiin isimada iyo nabadoonnada iyo aqoon-yahanka iyo bulshada soo fadhiisatay meeshaan haweenka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxa weeye war kama tegin khadar cabdi xaaji mire run ahaantii waxa weeye dadkan waxa isu soo saaray oo meeshaan isugu yimi waxa weeye dhib taabatay weeye dad iska soo tegey oo xaflad iska qabsaday ma aha dhibaatada taabatayna waxaa taabsiiyey shirkadda imaaraatiska iyo dowladda puntland dadkaani waa dadkii boosaaso ka asaasmay oo booso ka asaasantay sida la sheegaya hadda waa 15 qabiil weeye 15 qabiil dhibta isu keentay hadda waa wax la dareemi karo aad iyo aad u weyn wax indhaa laga qarsan karona maaha dadkaani ma aha dad mucaaradnimo isu soo urursaday ma aha dad horumarka dalka ka horjeeda waxaanu soo dhawaynaynaa horumarka ayraboorada wadooyinka dawladdu ay ku tallaabsatay waa soo dhawaynaa si wacan baanu soo dhawaynaynaa waxaanu diidaynaa wixii aanna qaban oo khasaare noogu jiro waxaa ka mid ah dekedda imaaraadku ay keeneen boosaaso oo dekeddii hore oo talyaanigu noo dhisay oo aan deynta ahayn ee deeqda ahayd in ay deyn nagaga dhigaan oo iyada intay xoogaa faarfaaraan qararka ka jajabiyaan guryaha iyo xaafaddana cagta mariyaan ay hadhow magacooda ku qortaan muddo 30 sano ah oo aanan qaadi karinna ay deyn u xanibnaato meeshaas oo ganacsigiga istaago oo dadka danyartahay halkaa ku baktiyo arrintaas arrinna qabata maaha wixii qaladana dawladda waxaan leenahay war saxa waxaan kaloo leeyahay guryaha iyaga lama geli karo iyo magacayaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قادن كرو. سلام كديب. ديارنا ما رالنا كمان نهين وأنا كل ما نينا. أنت أنت وكيلك كيهين ومجالات الدجن وقبائل كأه. وحوي جريه هذا. أنت سو كن أوقف وقيس يكون نوشهاي. وحوي إلا الدنيا رالي كمان نهين ديارنا ومان نهين. هل تاكو أو كم يدنا. وحن أشجعنا الدولة شركات بريفت كأه. hanti barayfada oo dad weyn leeyahay inaanan u ogolaan doonin in guryahayaga lagu tallaabsado oo khalad lagu tallaabsado danta guud ummadda ka wada dhaxaysa laakiin danta guud dal dekada looga dhiso lama waayin hareeraheeda oo dhan baa banaan saa ogtihiin dhinaca bari oo hadda uu ka sanqarinayay khadar cabdi xaaji mire ilaa iyo meesha la dhaho waxa la yiraahdaa hantaara waa banaan tahay waxay noqon kartaa 10 dekedood waxay u baahan tahay dawladda imaaraadku waliba shirkad weeye dawlad ma shirkadda imaaraatiska deked ay leeyihiin oo muuqata inay ka dhistaan halka haday kulay deyn tahay wixii deeqda ahaa oo Soomaaliya intaas oo sano ay ku soo mooday maanta in dad iyo dunyaba cagta la mariyo dekeduna ay 30 sano u rahmanaato raali kaman diyaarna lama qabato dawladana waa uga nasteexaynayna waxaanu leenahay waxa weeye horumarka lama diidana mucaarad maahin waxaanu nahay dadkii magaalada asaasay waxaanu leenahay dadkii ilaa iyo xaafatul arab ilaa iyo higlo inta ka dhaxaysa waa meeshii magaalada laga asaasay boosaaso waxayna u baahan tahay in la dhowro
ee in la dhibaateeyo uma baahna intaasoo kun oo qof baa ku nool intaasoo kun oo guri baa ku nool baa ka dhisan diyaar uma nihin raallina kama nihin waana ku dhimanaynaa ciddii noogu timaadana haddee iyadaa gudcurina ku caddayn waxaa le maxaa sacabka habeen loo tumaa haddaan xeere ku jirin waxa weeye maxaa heshiiska loo qariyey oo ummadda dekadda loo dhisaayo loo tusi waayey oo baarlamaanka saxiixay oo hadda la lahaa waxbay iyaga ruuxooda wax qarribay maxaa loo tusi waayey baarlamaanku wax aanay ogeyn bay saxiixeen oo ansixiyeen waxa weeye iyagaa wakiilada shacabka ahaa xilkoodiina ma aysan gudan danahooday qabsadeen annaguna danaha iyagaanu qabsanaynaa wabilaahi towfiiq salaamu calaykum sida bulshada reer boosaaso iyo reer puntlandba uga soo horjeedaan ugana cabanayaan anu maanta dawladda waa ku ayidi lahaa dekeddaa la dhisaya hadday deeqta laakiin deked ganacsiya oo shirkado ganacsiya dad guryahooda loo dumiy wax lagu ayidi karaan maaha laakiin sidii dekeddii talyaaniga noogu deeqay noo dhisay oo weliba ay qabyo u ahayd oo dawladdii soomaaliya kaga burburtay oo haddeer aan aaminsanahay in iyadii ay tahay in qabyatir ay ku samayso dawladda lala kaashado in la farageliyo oo magac kale loo bixiyo oo imaaraadku uu ku lib sheegto aanu ma qabo waxaan qabaa deked cusub oo ballaaran oo shirkadda ganacsi iyo macaashdoon ah ay ka dhisato boosaaso laakiin dekeddii hore oo deeqda ahayd oo dawladdii soomaaliya nooga tagtay oo lagu baxsaday oo fuuntadii Itaaliya miyaa la oran jiray deeqdii Talyaaniga ayuutadii Itaaliya ay ahayd in maanta magacii la aaso oo dawladdii lifteedii aynu qarino wax maanta sharaf inoo ama waxaan kaloo soo jeedinayaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladnimo deeqda inaynu taageerno iyada xoojinno maanta waxaynu ku helnay dekedda yar oo aan 30 sano ku moonday iyo jidka dheer waa dawlad Soomaaliya in dawladda Soomaaliyeed ay ayidaan oo aad taageertaan si kobaca kaabayaasha dhaqaale ay qayb uga qaadato dawladahan deeqda bixiyana ay ugu dhiirigeliso in la dhameystiro dekedda inta ka dhima dawladda Puntland waxa leeyahay shacabka Puntland ee wanaagsan dhageysta oo maqla waxa dawladdu tihiin waa aragtida shacabka haddii shacabka ka warhayn aydan maqal haddii dawladdu noqon maysaan anu waxaan oran lahaa waa laga maarmaan in la ayido codka dadweynaha reer Boosaaso cabashadooduna ay dawladda dhageysato haddii kale dhibaatada madaxda qaadaysa ay mas'uuliyadeeda aan isimada nabadoonnada aqoon-yahanada gabdhaha dhalinyarada saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan sida odayaashii iga horreeyay u sheegeen 15 beelood waxay war saxaafadeedkan u qabsadeen magaalada xaafadii magaalada Boosaasood laga asaasay oo udubkeedu ka taagnaa Puntland iyo shirkadda Imaaraatiga oo BD Wall ay tiri waa duminaynaa ba intaasoo qabiilo isugu yimaadeen waa intii magaalada ta ku noolayd waa intii xaafadda laga asaasay intaas ilaa iyo shirkaddaas hawsheedu markay socotay hawshaas ku socotay xaafadaha waxa kamid ahaa wasiirkan ka horeeyay subaxa kamida inuu yimi calaamad kaga soo bilaabay higla shishadeeda ilaa higlo ilaa uu ku geeyay xaafuto carab oo ay marxaanti lahayd wasiirka hadda joogaana uu yiri dekedda xaafad hore laga dumiyay waa dadkii soo qaxay oo Boosaaso dhammi ogeydo dekeddii hore meeshoodii degtay gudaheeda degtay guryahan waa guryihii daabaanta ahaa taariikhiga ahaa magaalada ubudkeeda laga taagay waxaan u sheegaynaa marka dawladda Puntland iyo dawladda federaalka aba inaan shacabkaas iyo dadkaas magaaladaas horumarkeeda inta ka shaqeynayo aan dawladnimada diidanayn wixii horumarana soo dhaweynaya oo aynaan maanta dhul ciriiri aynaan qabin labada daafood oo magaaladaba dhinacaynu rabno aynu dekedaynu rabno ka dhisan karno bari iyo galbeedba dhinacaynu u dhaqaaqnaba badeenu waa bannaan tahay sida la adligeed in dekedii Talyaanigu inoo dhisay sidii odayaashii inaga horreeyay ii sheegeen oo aynu ku baxsanay laamiga iyo Talyaaniga waxaynu ka dhaxalay dekeddaas waxaynu kaloo dayma ka dhaxalay naqfiis iyo xooga korontada intii aynu ku baxsanay oo dawladdii burburka dawladdii dhexe Soomaaliya markay dhuntay aynu ku baxsanay
waxa in la yiraahdo waxbaanu ka qabanaynaa macna samayn mayso waxa macna samaynaya sida ay raboorkeeno kale wixii horumara oo la taaban karo ninka marka xilka hayana inuu ka tago oo bari taariikh ay u noqoto shirkadda wax qabanaysaana ay taariikh u noqoto sida shirkadahaas ama Denmark ka noqdeen ama Talyaaniga ka noqdeen u noqon mayso in guryihii intaas oo qof ku oolaayeen la yiraahdo waa la duminayaa dada kan 5 iyo 6 iyo 10 qabiilo ah oo halka isugu yimina waxa isugu soo baxeen in ayan guryahoodaas ayan gorgoro gali karin oo yan iib ka ahayn waaga 6 iyo 10 qabiil sida la adligeed waxaan u sheegaynaa dawladda Puntland inay si tartiiba oo turud leh ay u eegto shacabkeeda ayan u eegin inay intay shirkad imaaraati lacag ka soo qaadato oo heshiis la soo gasho gooraan habeenahay subaxnaahay ay tiraahdo waa la duminayaa haddeeray ku socotaa oo tahdiidku ma yara waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo dawladda Puntlandba inay hoos u eegto arrinka runta oo jira sida ay qabiilada 6 iyo 10 ay isugu soo baxeen guryahaas gorgoro kuma jiraan kama ogolin takadaas hadii la buuxinayo badal la buuxin karaa dhinacyadeeda laga dhisi karaa dhul ma waayin saaka inuu takad ka dhisano waxaan u sheegaynaa madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas horumar buu wadaayo horumarkaaga ha nagaga tagin haraati aan meesha ku jirin waxaan nagaga tagtaa wixii aad qabatay bari taariikhday galayaan muddo gaabanina waa ku hadhay muddada gaaban oo ku hadhay waxaan rabnaa inaad wax wanaagsan ku qabatid laakiinse inaad dad maxasa oo magaalada laga abuuray oo halka degan oo ilaa geeskaasa uu yiraahdo waa duminaynaa ama saasaan yeelaynaa nama qabato madaxweynaha iyo awlal amar way hadeer xajku ka yimi marka sida la hadligeed waxaan rabnaa hawsha inuu si hoose oo dhow u eego waxaan rabnaa dhulkaas halka laga dhisayo dadkaanu dawladnimada waa ogol yihiin mucaarad maaha horumarka waa ogol yihiin wixii lagu kordhinayo buro ah oo Puntland ku siyaadaya inta ka faa'iideysanayo saweeye shacabkii Boosaasood weeye shacabka Boosaasood iyo shacabka Puntland iyo shacabka federaalka waxaan u sheegaynaa hawsha inay hoos u eegaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dhammaan isimada nabadoonnada dhalinyarada haweenka ningarboodka aqoon-yahanada saxaafadda dhammaan inta meeshaan isugu timid madashaan quruxda badan oo weyn waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam bacdigeed sida loo hadlay barnaamijkan aan ka hadlaynaa waxa weeye mar waa ergo marna waa afeef marna waa baaq aan u jeedinayno shacabka Puntland dhammaan meel jooga ergana waxa aan u nahay wixii wax yaqaan waxay afeef u tahay dawladda xukuumadda Puntland bay afeef u tahay waxaan leenahay Boosaaso sida odayaashii hore u yiraahdeen wax garadkii Cabdiwali waa u tagnay annagoo odayaal u sheegnay dekada meesha munaasibka ku ah annagoo maslaxadda dadka iyo dalka eegayna baanu tala ahaan siinay oo wadada leh oo macnaha ay macquul ku tahay dekedan Talyaanigu dhisay oo gabanta ah oo shaqaysa oo lagu liibaanay oo nagfish dhinaca kaga jiro kalluumaysatadii oo aan maantay yani inta keel la dul saaro oo lagu dul shaqaysto iyada annagu raalli kama nihin mana ogol midda kale waxyaalaha aasaarta ah oo qadiimiga magaalo kasta waxay taariikh ku leedahay aasaarteeda meesha ka aasaasantay iyo qadiimigeeda waxa weeye marka haddii magaalada la dumiyo aasaarteedii qadiimiga ahayd oo sheegaya cimrigeedu intuu jiro maxay macnaheedu tahay shalay meel lagu habsoo kale weeye taasina yeeli mayno waxa weeye tan kaleeto madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan leenahay annagu nabad baan rabnaa horumar baan rabnaa caqligu waa inuu shaqeeyaa dekada meesha munaasiba ku ah idinka laftigiinu dadku ina dhagu wax ka maqlaa ina halka dhuunta haddii aydan dhagax ka maqlaysaan waa fahmi kartaan laakiin dhuunta wax ka maqlaa waxa ma fahmo wadada dekada hadeer ee la sheegay loo sheegay hore loo sheegay wadada magaalada townka
oo lagu xirmo oo gaariga yarka oo taksiga uu soo mari karin oo hal saac lagu jiro deked miyay waddo u noqon kartaa samtareelayaal iyo baabuur marayso waa maya waa u jeednaa inaba mise magaalada dhan baa dumaysa gees badumay ma la duminaya magaalada waxaasu macquul maaha waxaan leenahay maslaxadda dadka iyo dalka halla ogaado shacabkuna waxaan leenahay ha laga fiirso sida loo yiri oo odayaashii hore u yiraahdeen annagu waxaan afeef u leenahay oo u jeedinaan ummadda war maslaxadda dalka halla eego haddii la diido aasaartayada iyo degaankayaga yeeli mayno in la dumiyo waana ku dagaalamaynaa soo maaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim dhammaan madasha dadka ka soo qayb galay waa salaamantihiin nabadoonnada odayaasha waxgaradka aqoon-yahanada dhallinyarada ururka haweenka saxaafadda dhammaan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda alsalaam war saxaafadeedka maanta lagu qabtay boosaaso dhexdeeda wuxuu ku saabsan yahay arrimaha dekada laga dhisayo boosaaso arrimahaasoo dadka kiciyey aadna u kuleeyey waxaan u malaynayaa waxgaradkii iyo odayaashii baa hadalka dhammeeyey hooyooyinkii baanu nahay degaanka ahayoo xadaariga ahayoo waddanka u dhashay baanu nahay deganna dhulka dawladdu calaamadsatay oo ku taahayso iyadoo aanu jecel lahay annagu Puntland hooyadeedii aanu nahay dadkii ururiyeen aanu nahay asaasayaashii Puntland aanu nahay Puntland maanta waxaanu ka filanaynay raaxo madaxweyne kasta oo la saaro laakiin maanta inoogu doobir xuntahay waxa la yiri 400 oo sano dhulkii awoowayaashin ku dhaqnaayeen baa la burburinayaayo nin carab ah oo tuuga ah oo shirkadda la yaqaan caana بعد كده سوي له بربريناي هذا كور صحافته واكشيغ sida odayaashu sheegeen wadanku waa wadan ballaaran badweyn ballaaran baanu leenahay bari ballaaran baanu leenahay dekad waa haysanaa talyaani baa noo dhisay shirina nagama qaadan dawlad jirta baa noo soo kaxaysay waana noo dhisay iyadoo qabyaaba dawladii ku dhacday dhamaystirkeedana wali waa sugaynay 17 sano talyaani baan ka sugaynay inuu noo dhamaystiro haddayba si ahaatay kaabayaasha dhaqaalaha Abu Cabdullaahi Cabdiweli nafta ku bixiya laakiin hadda Cabdiweli wiil aanu dirsanay wax barasho u dirsanay buu ahay madaxweynena waa ka dhigay maanta inuu dalkii uu ku horumaray oo dalkiisa ay saldhigiisii dadkii ugu horeeyay Boosaaso inuu yiraahdo maanta cagtaan marinaya Cabdiweli kama aanan filaneyn taasi waa nasiib darro weyn ninkii soddonka soo boqolka maxay baqtiga ku afuray iska dhigi maayo bay la tahayo de waa madaxweyne mutacallim ah oran maayo wax yar baa ku haray dadkii haraati kaga tag anagu isagan wanaag ka sugayna madaxweynaha waxaan leenahay dekada dhulku waa ballaaran yahay wadanka horumarkiisa ma diidin aad baan u jecelahay laami hadday tahay jidad iyo guryo iyo aeroboor iyo dekad kulli raalli baanu ku nahay dawladda kama soo horjeedno mucaarad miihin dadkii gogosha u dhigay baan nahay dawladda hogaaminayay dadka nabadgelyada laga helaan nahay reer Boosaasood asali ahaa baan nahay 16 beelood baa halkaan maanta isugu tuma saxaafadda ka jeedinaysa waa dadkii Boosaaso asaaskeeda lahaa dadkii yacaga ninkii yaqaan baadiyaha baa yaqaan la yacaga Boosaaso dhigay weeye maantana in la yiraahdo war dekad baa la idinka sameeynaya dekad bad laga sameeyo naarka jire waa wax dhaguhu ayaan ogolayn maskaxduna qaadi karin haddii madaxweynaha la qaldayo niman carabi ay qaldeen ama 60kii muxuu ahaayay baarlamaanka aynu geysanay ay ku luqluqdeen maaragtay wadankooda inay si xilli kaga tagaan horta iyagu waa ku ceeboobeen maanta ka baa nin dooranaya ma jiro qabiil walba ninku geystay tafutadu laad kaga jiidaya ilaa waa calaan dalkiisa iibsaday waxa weeye imaaraadna shirkadda ay wadato oo ka imanayso waa la yaqaan odayaasha ka sheekeeyay annagu waxaan u naqaan goortii adduunka laga sheegay in shirkaddu uga tahay 30 sano dhaqaalaha guranayna dekadna waa ku dhisayna war midaan shir laga qaadan oo talyaani aan noo dhisay shirina nagama qaadan walina waa ku raaxaysanayna iyagina waa noo imanaya waxaanu dawladda ka codsanaynaa war saxaafadeedka u qabanay dadkii reer Boosoodka aanu lahay
deganaa xaafadda boosaaso asaaskeeda ahaa xadaariga ahaa umkanayaasha ahaa 400 sano odayaashoodii ka soo gaaray baanu nahay ilaa ka oday maanta annagu dawladda kama horiman dagaal ma samayn karo anaan ma samayn karo ay ma samayn karo waa dawladda iyadii waa dadka iyagii waa Puntland dawladdu federaal bay leedahay ay qalinka la wadaagto oo ka sareysa federaalkii dhinac buu ka qaylinayo wuxuu leeyahay qalinka anagu war kama hayno dawladii waaweynaayo adduunka oo imaaraad joogay dhinac bay ka qaylinayaanoo waxa loo soo tuuray baac mushtarka iyagii diyaarad lagu soo guro waxa la inaga baxa barlamaanka iyagii qalin beena uu saxiixay dekadii waxa la yiri waxa laga duminaya intaas oo guri oo xaafadda 16 xaafadood dadkii deganaayeen arintaas wax la qabto hawsha wada annaga hadeer horta dawladdu markay qofku wax ku qabanayo horta qofku waa inuu ku aqoonsan yahay waa inuu ka naxaya xoolaha iyaga bay xirtay imaaraadku xoolaha iyaga bay xirtay baasaboorka iyaga bay diiday baasaboorkii bay diiday baasaboor Soomaali dadkii Itoobiyan bay ka wada dhigtay Soomaalida tagto dhan waa Itoobiyaan been sheegay beentaba Itoobiyaan weeye dadka tagayo dhan waa Itoobiyaan Soomaali Itoobiyaan bay ka wada dhigtay waxa baasaboorkaaga ma ogola xoolahaagii bay xirtay wax dan ay ku wada ma jiraan dadkaaga bay xiraysaa ninkii xogaa ku garato beero dibadda u baxa annagu waxaan leenahay dawladdu heshiiska ka fiirsato dawladdu mucaarad kuma nihin anu dadka saxaafadda ka hadlamihi weligay saxaafad ma tagin kama hadlo saxaafadda laakiin tan maanta dan baan ugu kaliftay inaan dadka wax u sheegnaa rabnaa dadweynaha inaan wax u sheegnaa rabnaa waxaad ogaan doontaan waxa la yiri sideeda wax baladu ka hortag bay leedahay wax kasta wax ilaajka waxa ka fiican in wax laga hortago baa wax kasta ka wanaagsan inta waxa ku niman in laga hortago hadeer waxaan leenahay dawladda kharash madina kama gelin nimanka waxa way dekada dhulka bal xeebtaas aan haysanaay adeer dekad waa u baahanahay xeebaha qowgay hadaa rabto halka geey haday airportka dhiciis geey hadaa rabto mareere geey hadaa rabto kasi fogay intaas oo dhan ma haysanaa waxa weeye maaha dhul ciriirin kuma aha waxaan leenahay dawladdu heshiiska ka fiirsato wax kale orameyn dawladdu heshiiska ka fiirsato waxa kale oo aan ku darayaa in yar oo iska dardaarana waxaan yiraahdaa wax iska dardaarana waxa nin weyn wuxuu yiraahdaa wuxuu yiraahdaa waa dardaaran wuxuu quutana waa dooni waxaan leenahay dawladda hal baan leenahay haday dawladdu heshiis galayso sida hadda dad badan ka dhawaajiyay waa u banaantay in heshiis gasho inay waddanka horumar mariso waa u bannaan tahay inay waddanka wax ka qabato kaabayaasha dhaqaasha waa u bannaan tahay waxyaalaha horumarka inay ka shaqeeyo dawladdu waa u bannaan tahay laakiin waxa ku jira wax kasta oo qabanayso ummadda meesha degan maslaxad ma u yahay ma soo maaha horumarka haduusan maslaxad ahayn oo maslaxad dadka maslaxad u ahayn waxa way horumar lama yiraahdo wixii aan maslaxad ahayn horumar lama yiraahdo wixii aan dadka maslaxad ugu jiro horumar lama yiraahdo waxaan ognahay waxaan leenahay heshiiskaas alla gasheen bibil hay'adaas alla gasheen oo bareefadka oo aan dawliga ahayn waxaan qabaa anigu rayi ahaan dad badan waa qabaa maslaxad ummadda ugu ma jiro ahay haygaas baan ugu sallim ilaahu waxaanu ku weydiisanaa khayraadka nabi maxamed ku weydiist ilaahu waxaanu ka maangalay shirkii nabi maxamed ka maangalay ilaahu boosaaso waa lagu liibaano qaxi waa lagu qoseeyo meel khayr ka dhig ilaahu dawladda loo wanaaji ilaahu iimaanka ku sug ilaahu rabbiyow adiga caadilahe waa wanaagsannahay barwaaqada ilaahu waa kaga xamdi naqal waxaa la yidhi kaftan gabana haasaawaha la isu geliya على علم أفجر أساسي أنا وحنا لنا هاي معارض ماهن ذلك كما سهر جد دولة كما سهر جد ودولة وناكسر عبد الولي قاسية دولة ديسو بارقال بيتجين حافون بيتجين بيلي تجين ذلك نبو مري مدحوينه هري ومري جلال ومري مجده مدحويني عادي عاد باننا اليوم متعلمات واشق إيسا لكن هذا باور والبيبقى بليه ركاب كاس يوئنا غلدن وكين اسكهوركين موساسو واميشا نبدا وجعل وقرقي لغو فريساناي ودلكي لو سوقحي معارض مقشو انتا سو مدحوينا سو شقي عبد الله يوسف سو شقي عدا سو شقي
cabdiraxmaan baa soo shaqeeyey adigaa soo shaqeeyo hadda shaqadii ku jira waxaanu doonaynaa aynu tashanno war aynu tashanno oo baarlamaanka anigu waxba aynu tashanno oo tala la'aantu waa belo anigu haddeer sacuudiga iyo dabe iyo anigu waxba ku sheegmaya laakiin waxaan kuu sheegay mukulli aanu daris ahayn oo kalluunka geysan jiray oo xaniidka geysan jiray waa cuneen hadda annagaana ku xigna marka madaxweyne xaaji ka fiirso dal badan baynu leenahay halkaa haddii la geeyay odayaashii hore sheegeen oo la yidhaa imaaraadka oo maxaa ku jira maxaa dariiqa ka loo baysay talyaanigu dhisayo noogu deeqayo dowladdii hore ka duntay halka maxaa loo soo aadayay wuxuu yidhi marka sidaasay noo ballama anigu raggii hore baana yidayaa aad iyo aad معارض ماهي هدي ورحونا ولا جوا وكوشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wax badan hadalkii badankiisu waa la sheegay waana la yiri laakiin arrimo yar un baan ka hadlayaa horta khadar khayr allah siiye 3,000 buu ku sheegay maanta ardayda ka baxday Xaaji Mari laakiin kontonku waa ka badan tahay sababtoo ah aabahay aniga iyo carruurtaydu inta waa ka baxan waxaan sheegaynaa oo kaleeto horumarka dalka dadiidin ma dadkii waxaanu nahay laga soo gaaray horumarka dalka ku faani maayo awoowahay adeerkay iyo aabahayba dhulkii bay bixiyeen laakiin maanta anu waa ka xumaanayaa iyagii waxaana uga xumaanayaa awalan marka inii sheego awoowahay dekadii hore u bixiyey kuna aasan yahay waa faarax cali haddana qabrigiisii yaal waad ogtihiin qabrigii asaarta hadda weyta mana rabno in la dumiyo inaanu arkoonaan rabno kow dayib guure wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda waa dhulkiisa dowladdii siyaad barre 1972gii baa la siiyey oo uu siiyey daahir faarax libow waddada marta oo laamiga oo la sameeyo oo ay samaysay shirkaddii talyaaniga ahayd dayib guure iyo gurigii daahir faarax buu maray laamigaas hadda martaan guryaha iyaga bay mareen waa ku qanacsan horumar baanu doonayn laakiin maanta may horumar ma rabno sababtoo ah shacabka baarlamaanka wuxuu noo ahaa golaha shacabka isagana maslayay baarlamaankiina maslayay World DB Wall lacagteedii ninka maanta horumarsaday waa isaga 40 milyan bay qaateen $1,000 marka waan ka xumaanayaa odayaashii oo waxaan uga xumaanayaa maadaama mustaqbalka wiilkooda ay doonayaan inay guri ugu dhisaan aniga gurigayga la dumiyo guri loogu dhiso ma qaadanin marka waxaan qaadan karno marka waxaan leenahay qolada xukuumadda oo aan ognahay waxay ku timi iyadoo maqaar saarka iska ah sababtoo ah waxay maqaar saar u tahay lacagta laalushka la qaatay iyaga laga qaatay inay maanta anaga wax noo sameeyaan kama filan madaxweyne waxaan ku leenahay hoos u eeg wax arrintan anagu horumar dadiidan maahin dalka horumarkiisaan doonaynaa yaan la kicin ummadda dalka hala dejiyo waxaanu doonaynaa hadda waxaanu soo marray 29 sano oo burbura ma sii doonayno burburka in la yimaado DB World lacagtaada cidii kaa qaadato waa tahay ganacsatayadina waa naga soo saartay waan ognahay ilaa iyo xilliga aad bilowday nin kasta maalin bay soo tarxiilaan waxay yidhahdaan soo ka bax dalka way soo bixeen hadda inta ku artay waa laga barbariyaa adnaga waxayniin samaynaynaa dad ka maqlayno Jabuuti aan ka arkayn cadan baan ka arki lahayn berbera oo maanta waxaan soo maray 7 beri ka hor baan u malaynaya 25 beri waxa taagan maraakiibtu wax rogi lahayd baa laga leeyahay inay rogaan marka dikadaan xunta naga xidhmaysa iyo inaan nimeen wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh uqaasha nabadoonnada dhalinyarada aqoon-yahaniinta ururka haweenka saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka bacdi waan ognahay qof kasta oo muwaadin kasta oo reer Puntland nabadgelyada iyo sharafta iyo ciska uu leeyahay inay waajib ku tahay inuu ka taliyo kana balkeeyo talabaad waxa weeyeen halkan arrintan taalma maantay dekada waxa dhistay dawladdii Soomaaliya
magaceeduna wuxuu ku yaalaa dawladdii Soomaaliya United Nations ugu jira inay dhistay dawladdii Talyaaniga ahayd oo markaa uu ka ahaa ra'iisul wasaaraha Francesco Fortan Molinaya ninkii maantii dhagax dhigayay inuu ahaa Galaxy anigu waxaan ka mid ahaa shaqaalihii technication ay laga soo qaaday xamar looga soo qaaday dekedan ka mid ahaa dawlad kasta ama madax kasta ama cid kasta oo wax loo idmadana waxa ay qabato iyada ku amaanan kuna leh cis iyo sharaf iyo cidii ay heshiiska la gashay dekedan waxa dhisay Talyaaniga waxaana la galay dhiilka dawladdii Soomaaliya oo uu ka ahaa Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistee sidaa darteed waxa weeye meel walba iyada ugu taala hadda waxa la deked baa la dhisayaa dekeda Imaaraadka ayaa dhisaya waxaan leenahay madaxweynaha dawladda Puntland oo garwadeenka ka yahay mudane Cabdiweli Cali Gaas oo ka kooban golaha wasiirada golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumaddu waxa idinkuna sharaf ku heleysaan ama cis ku heleysaan inaad deked cusub samaysaan oo magaciina iyo magaca Imaaraadka labaduba uu wax ku noqonaya laakiin inaad tirahdaan waanu burburinaynaa dekedii Soomaaliya oo magaceedu ahaa dawladda Talyaaniga iyo dawladdii Maxamed Siyaad Barre inaad burburisaan magac ku heli maysaan idinkana yeeli mayno haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed sababahaana idinka yeeleen waxa jirta dadka danyarta ah dekeda haddii la burburiyo BB Wall waxyaalaha ama deriskeena ama Soomaaliya ka dhacaya waad ogtiin sida Berbera Djibouti waxay ku soo rogeen qof kasta oo galaya inay $1 ka qaadaan waxa laga yaabaa qofku inuusan $1 heli karin ee dekeda xamaal dootay taas waxay noqonaysaa baabi'inta iyo curyaaminta dadka danyarta iyo idinkana weydiku magaxumo iyo samad xumo weeye waxaan leenahay dhul balaaran oo xeeba baynu leenahay inay tanuna shaqayso mid cusub la dhiso idinkana saas sharaf idinku jirtaa dawladda Imaaraadka saas sharaf ugu jirtaa tan labaad oo kale dawladii markay qod la gelayso agreement-ka bulshadeeda waa inay soo badhigtaa joornaalada waa lagu soo qoraa miidiyaga waa laga sidayaa waa in golaha baarlamaanka la keenaa golaha xeerdejinta kulli waa in la wada keenaa bogta waa ay noqonaysaa wax qarsoodiya oo dad khaasi ay galeen bulshada iyo iyagana waxa kala galaya tuhun iyo nacayb baa kala galaya intaas waxaan leeyahay qolada dawladda dadka reer Puntland ama reer Boosaaso nabadu waa wax muqaddisa weey ninna loo weydiin maayo waxaan leenahay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada sharafteena iyo ciskeena baa ku jira idinkuna waxaan leenahay intaas aan dib u eegtaan deked cusubna u dhistaan dadka laakiin tan waa burburinaynaa waana xiraynaa dadku xagee aadayaan markaa waa in dadka cagta la mariyo weeye marka ma garatay markii la yiraahdo doonta 10 casha la haynaya doontii habeen iyo maalin lagu dan jiray ganacsatadu maxay ka siinaysaa qofka kartoonka markii intaas u kharash ku socdo soo in la gowracay ma dad la gowracayo ma marka hore dadka laaya oo seef bariya marka doore war sidaas inagu hadeenu nahay bulshaweynta reer Boosaasood ama reer Puntland meel kasta ay joogaanba inaynu deked cusub la inoo dhiso oo teenaas inoo shaqayso sida raaliso kubaynuin wabillahi tawfiiq ummadda meesha isugu timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxa weeye ikhyaarta iga horeysay dee arrintoodii oo maaragtay iyagaa waxayba sheegay maxaa noo haray taasaanu ku raacsannahay taasaanu ayidaynaa ma garatee waxaanse ku darayaa meeshaan 400 sano buu dhisnayd Boosaaso la yiraahdo ka awoowe bay ahayd cid Talyaani Ingiriis Soomaali wax taabta ma jiraan dawladii hore oo madaxweynayaashii hore inay ammaanaan ma ahaane agteeda ma mari jirin waxaan u sheegaynaa madaxweynaha dadka maantada oo meesha ku nool oo taariikhi ah oo Boosaaso ah anu ayaan baanu hadaynu saarayna waxaan idhi intaan la dumiyo taariikhdii hore maanta garible aadimayno
taa ku tasho inaana aadinkaa rible annagoo boosaaso asaaskeeda ahayd oo degan oo cid talyaani ingiriis soomaali midna iyo carab midna agtayda iman oo ammaan nina siya maahee xumaan nin loola yimaado uuna jirin annaga waxaan qabnaa horena waa kuu sheegnayo halkan la yidhaahdo mareero bad weyn baynu leenahay oo qarka ka durugsan madaxweyne meeshaan hore kugu sheegnay dekedda ha laga dhigo dekedda meeshaan hore kugu sheegnay oo tiriya taliya tii baanu ayidaynaa oo ummadda hadda meesha isugu timi taasay ayidaysaa intaas baan ku soo koobayaa